afayeenka madaxtooyada ahna la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariisow oo saxaafadda shirjir ugu qabtay gudaha aqalka madaxtooyada ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu been abuur ku tilmaamay warbixino eedeymo u soo jeediyay dawladda Soomaaliya oo dhawaan ay soo saartay kooxda Monetary Group ee la socodka cunaqabateynada Soomaaliya iyo waddanka Eritrea saaran Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariisow waxa uu sheegay in eedeymaha loo soo jeediyay dawladda Soomaaliya dhamaantood ay yihiin kuwa hal dhinaca isla markaana aan waxba ka jirin afayeenku waxa uu soo jeediyay marka qaramada midoobay ay hay'adaha soo saarayaan eedeymaha noocaas oo kale in loo baahan yahay in dawladda la soo socodsiiyo si dawladdu ay u eegto eedeymaha loo soo jeedinayo sidoo kale afayeenka madaxtooyada Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow waxa uu soo dhaweeyay eedeymo kooxdaasi Monetary Group ay soo jeediyeen dhinacyo ka baxsan dawladda Soomaaliya kuna lug leh arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay ka jawaabid warbixintii guddiga qaramada midoobay ee u xil saaran cunaqabateynta Soomaaliya iyo Eritrea ee dhawaan soo saareen dawladda Soomaaliyeed waxay ku baaqaysaa horta guddi dhexdhexaadin ah in la sameeyo oo mustaqbalka warbixinada qaramada midoobay ay qorayso ay dawladduna awood u hesho inay u tagto ay maaragtay kala hadasho dawladda federaalka Soomaaliya waxay ka muujinaysaa walaac warbixinadaas iyada ah oo ay ka buuxaan qaladaad badan qaarkood iska hor imanaya iyo arrimo aan sax ahayn ay ku jireen baaqa marka dawladdu wuxuu yahay in si hadda kadib dawladda loo siiyo fursad ay uga jawaabto warbixinta intaan laga dhigin mid faafsan in dawladda loo soo gudbiyo si ay eedeymaha la jeediyo ay uga jawaabto isla markaana ay cadeymihii loo baahnaa u horgeyso si ay u tixgeliyaan oo guddigii maaragtay ay ugu darsadaan xisaabtooda waa la socotaanoo in dawladdu ay aad iyo aad uga go'an tahay in guddiyada noocaas oo kale ah in lala shaqeeyo haddana aan la shaqaynay aad iyo aadna ay warbixinta ugu ammaaneen dawladdu inay la shaqaysay laakiin ayaga dhankoodii ay ka gaabiyeen oo ay ahayd inay dawladda maaragtay eedeymaha ay hayaan u soo gudbiyaan waxay ku guuldareysteen inay la tashiyo la sameeyaan dawladdii inta aan la faafin si jawaabta dawladda ay u bixiso waxa kaloo reportkaas ama warbixinadaas inta badan lagu saleeyay xan fadhi ku dirir iyo kutirikuteen oo runtii aan munaasib ku ahayn eedeymaha noocaas oo kale oo culculus in maaragtay ay u noqdaan Ali Sheekh Maxamed Cali Yare TV-ga Kalsan magaalada Muqdisho